waan idin salaamay dhammaan dhagaystayaasha dhagaysanaya meel walbood joogtaan. waa barnaamijkii abuur cusub iyo hoob abuukar oo idin leh soo dhowaada. maanta waxaan jeclahay inaan idinla qaybsado mowduuc ku saabsan rumaysad ama rumaynta ama iimaanka sida ay dadka qaarkood u yaqaaniin waxa la aamino ama la rumaysto. rumaynta ama rumaysadka waa doorasho. rumaynta waa doorasho ka timaada qofka gudihiisa oo asaga gaar u ah uu ku qanacsan yahay jiritaanka waxa uu dooranayo ama waxa uu rumaysanayo. waxayna ka timaadaa asagoo adeegsanaya garaadkiisa u gaarka ah ama garashadiisa ama fahankiisa qaaska u ah. waana wax lagu qanco oo gudaha qofka ka yimaada. rumaynta ma ku imaan karto qasab ama cadaadin ama cabsigelin handadaad kuma imaan karto, ilaan waa wax gudaha qofka ka yimaado. marka uu rumaynayo waa inuu qofku ku qanacsan yahay waxa uu rumeeyey, waa inuu og yahay waxaasi inay jiraan, inay yihiin, oona asaga gaar ahaantiisa ay uga imaato gudihiisa ay ka timaado inuu waxan uu rumaysan yahay ama uu iimaan ku qabo. marka aan aragno qof lagu qasbayo qaadashada diin ama caqiidad ama dariiq ama fikrad oo uusan asaga raalli ka ahayn, su-aasha imaanaysa oo isweydiinta leh ayaa waxay noqonaysaa ma lagu aamini karaa qasab? wax ma ku aamini karnaa annaga qasab? hadduu qof wax jiritaankooda uu ku qanacsanayn uu yiraahdo waan rumaysanahay, qofkaas ma dhab ma u rumaysan yahay oo qalbigiisa may ka timid? marka rumaynta layskuma qasbi karo, waxna laguma rumaysan karo cabsi daraaddeed. haddaan ka soo qaadano sida bulshadeenoo kale, taas ayaa su-aasha igu dhalisay oo ay qasab kaga dhigaan dadka inay aaminaan ilaahay oo aynan jaanis u siin inuu qofka ka yimaada uu ku qanacsan yahay oo gudihiisa ka timid aynan ahayn, laakiin lagu qasbo waxa uu aaminsan yahay. taas ayaa igu dhalisay maanta inaan mowduucan soo qaato oo ah rumaysadka. bulshadeena Soomaaliyeed waxay jecel yihiin in qofka doonistiisa ama waxa uu doorto rabitaankiisa loo dhaafin oo lagu qasbo inuu fuliyo rabitaanka waalidkiis ama rabitaanka mujtamaca si uu loo aqbalo ama uu uga mid noqdo. waxaa fiican in la siiyo qofka xornimad uu wax ku dooran karo, xornimad gudihiisa ka imaata iyo qanac uu ku qabi karo ama rumaynta waxa uu rabo uu jecel yahay inuu rumeeyo. aan u sii dhigo sida aan ugu talagalay oo ah ilaahay ma lagu rumaysan karaa qasab? waxa ugu weyn oo aan usoo qaatay mowduucan wuxuu ahaa ilaahay ma ku rumaysan karaa aniga qasab? sida aan ognahay bulshadeenna waxaan maqlaa hadal ah annagu 100% muslim baan nahay, aan aaminsannahay. haddii qof uu yiraaho anigu ma aaminsanina, waxaa laysku dayaa in lagu qasbo inuu soo noqdo. sida ay diinta qabto 3 maalmood in la siiyo, hadduu ogolaan waayana la dilo. marka qofka oo saas loogu qasbo ama lagu cabsiyo dilitaan uu yiraaho aniga waan aaminsanahay waan soo noqday, ma kula tahay qofkaas inuu qalbigiisa ilaah ka aaminsan yahay? ma kula tahay in qofkaas uu doorasho uu doortay uu ilaah ku caabudayo ama uu ku og yahay jiritaanka ilaah lagu qasbayo? taas ayaa igu dhalisay inaan waan ka fikiray oo mowduucan si xoog leh aan uga fikiray oo garan waayey ama maxaa sabab u ah in mujtamaceenna uu yiraahdo 100% waxaan nahay muslim, iyagoo adeegsanaya cadaadin iyo cabsigelin iyo handadaad. qofku waxaa fiican in loo daayo doorashadiisa uu ku dooran karo ilaahba asagaba ma qasbin moogta. hadduu ilaah rabo inuu qasbo, ilaah asaga qofka sameeyey wuxuu ka dhigi lahaa mataqaanaa sida oo
bombalaha waxaan dhahno oo lagu ciyaaro kale program uu soo program garayn lahaa qofka oo markuu dunida yimaadaba wuxuu asaga rabo uu samayn lahaa laakiin waxay ina tusaysaa in marka aan imaano aan leenahay doorasho in uu ilaah uu rabo ina annaga doorano ina aamino iyo inaanan aaminin midda kale mararka qaarkood waxaan ka fikiraa dowlado waxaa jiro loo ogolayn inay diimo kala fiiriyaan Sacuudiga ama Soomaaliya looma ogolo in Bible la geliyo in la akhrisan karo waxa isweydiiyaa dadka ma iyagaa doorashada leh oo ku qanaca leh mise kuwa kala u fikira oo iyaga iimaankii iyaga maba ka imaanin oo dadka xoogga leh oo awoodda leh oo handadaya ayaa iimaankooda ay iimaan ku yeelanayaan maxaan ka wadaa qof baa i handaday asagaa wax aaminsan oo wax ku qanacsan bal ka waran haddaan cabsi aan qabo aan u dhaho okay waa aaminsanahay waxaad aaminsan tahay ma anaa aaminay mise waa qofka aaminaadiisii waxaan aad ula yaabaa marka bulsho loo diido inay wax doortaan oo ilaah ay ku aaminaan garashadooda gaarka ah taas ma ku tilmaami karnaa inay rumeeyeen ilaahaas haddii dowlad ama mujtamac uu qasbo in aanan la fiirinin oo aanan la akhrinin wax kale oo aanan la raadin ilaah oo la yiraaho waa sidan ee sidan u qaado oo wax kale ma aad fiirin kartid oo kitaab kale ma akhrin kartid oo yani adduunyada waxay fikradahay ka qabto ilaah ma raadin kartid ma kula tahay in ay rumaysan yihiin oo ilaahaas ay ku rumaysteen iimaan ama rumaysad iyaga ka yimid mujtamaceena Soomaaliyeed gaar ahaan haddii qof uu ka tago diinta islaamka waxay ay aad u isticmaalaan cadaadin badan oo ka timaada bulshada ka timaada familka dhexdiisa ka timaada dadka ugu dhow ama ha ahaado walaalaha ama ha ahaado waalidkii ama ha ahaado ilmihiisa ama naagtiisa ama haddii naag tahay ninka qabaa oo laysku dayaayo in qofkaas uu ilaahay amino ama uu noqdo muslim marka qofkaas cadaadintaas badan darteed haddii uu yiraaho okay waxaan ahay muslim marka taamiya muslim ka dhigta mise iimaanku waa wax ku qancid gudaha ka yimaada dad baaba qaar gaaraya inay ilaahay dartiis wax u dilaan oo yiraahaan waan dilaynaa qofkii ka baxa bal maxaad adiga faa'iido ka helaysaa hadduu qofkaas ku yiraaho waa aaminsanahay laakiin qalbigiisu uunan ilaah ku qanacsanayn oo adiga only ku yiraaho oo kaligaa ku yiraaho okay ama bulshadii uu yiraaho waa aaminsanahay laakiin iimaankaas iyo rumaysadkaas ilaah uu ku qabo uusan ka imaanin qalbigiisa maxay u faa'iideynaysaa bulshada maxay faa'iido u leedahay maxay u faa'iideynaysaa familkaas uu ku jiro maxay u faa'iideynaysaa yani dadka uu la dhaqan yahay maxay u faa'iideynaysaa ilaan qalbigiisa maba ka aaminsana waa qasabe sidaas miyaa islaamka dhigi kara ma ku qanacsan yahay ilaah in qof lagu handado si uu ilaah u aamino ilaah ma ku faraxsan yahay qof inuu ku caabudo caburin iyo cabsigelin waa su'aalo aan fiican ina isweydiino oo qofka isweydiiyo maxaan aniga intaa u baxo qof kale u dilayaa si uu ilaah u aamino soo ilaah awood ma leh soo asaga kaama awood badna adiga oo asaga iyo kaa dilaysidba soo asaga idinma samayn soo haddaa aaminsan tahay ilaahay inuu awood leeyahay soo ilaahay ma dili karo qofka maad u daydid midda kale waxaan ka yaabaa waxaa la yiri 3 maalmood ha loo qabto inuu soo noqdo hadduu soo noqon waayana waa lagu dilaa ha la yiraaho qofkaas ma kula tahay inuu ku qancayo oo qalbigiisa uu ku qancayo within 3 maalmood inuu soo noqdo mise waxaa keenaya oo soo noqeya waa cabsi bal ka waran haddii qofkaas 3 maalmood ka badan wuxuu joogay sanad wuxuu joogay 2 sano kadib ayuu isfiiriyey markaasuu haddana soo noqday adi markaad dishid marka siduu qofkii wax u fikirayaa
oo waqti u haystaa oo wax kasta u soo baaro oo uu ku qanco waxa aad ku qasbayso. ilaahay miyaad ka xoog badan tahay adiga? ilaahayba wuu daayay. ilaaha nafta siiyey, ilaaha nolosha siiyey. inuu neefta aan neefsanayna haddaa aaminsan tahay ilaahay inuuna siiyey, sabab ayuu u daayay. sabab ayuunan uga dhigin sidii mashiinoo kale oo dhulka inta la keeno uu ilaahay only wuxuu kusoo program gareeyey uu ku hadli karo oo uu ku dooran karo. so ilaahay kuma samayn karin inuu annaga naga sameeyo markaa imaano hadalka aan hadlayno aan ku amino oo aan diidin. muxuu fikrad noo siiyey ilaahay? muxuu doorasho inoo siiyey aan dooran karno, aan haa ama maya ama waan rabaa ama ma raba aan ku dhihi karno? marka adiga oo bini aadan ah marka aad ku qasabto qof ilaahay, qofkaas kuma rumaysan karo ilaahay qasabka aad ku qasabto. adigana ilaah kama xoog badnid, adiga ilaah kama fikrad badnid. oo laga yaabay hadda waxaan arkayay nin intaasoo sano oo ka maqnaa islaamka oo islaamka soo noqday. ka waran haddaad dili lahayd 3 maalmood kadib oo mar hore la dili lahaa, ninkaas ma soo noqon lahaa? midda kale oo aad uga yaabay waxay tahay waa la habaartamayaa, waa la caytamayaa, waa dadkiyaa la canaadayaa. ya marka ilaahaas oo habaarka dhagaysanaya duco ma maqli karo? waaba yaabay. habaar unbuu maqlaa in qofka uu ku imaado. qaar baaba waxay gaareen heer ay dadkii bay sixrayaan, balaayi u aqrinayaan inay qofka wareero oo ku soo noqdo. ma kula tahay ilaahay inuu ku faraxsan yahay qof cabsi ku caabuday? maxayse ilaah faa'iido u tahay? maxayse bulshada ka faa'iidaysanaysaa qofkaas markuu ku soo noqdo uu yiraaho aniga sidiinoo kala ahay, ama waxaad aaminsantihiinaa aaminsanahay, ama ilaahaad aaminsantihiinaa aaminsanahay? taa ilaah ma ka dhigtaa inuu yahay ilaaha runta ah? intaas dowladood oo laga xiray inay wax kala aqriyaan oo loo diiday, especially waxaa la yaabaa oo aad ula yaabaa baibalka maxaa looga cabsadaa oo wadamada islaamka oo dhan ay baibalka u diidaan oo in la geliyo. ma diidaan buugga buudaha, ma diidaan buugga hindowga, ma diidaan buugaha kale. waay ayaa loo diidayaa buugga baibalka oo masiixa ka hadlaya? waay uu threat ugu yahay wadamo qaarkood, especially wadankeena Soomaaliya? waaya loo dilaa qofka markii la arko asagoo bible wato ama uu yiraaho masiixiyaan ahay? ma arkin dad daba ordaya dadka buudaha noqdo, ma arkin dad daba dhigta kuwa atheistga noqdo, ma arkin dad daba dhigta ya kuwa fasahaadka samaynaya oo balaayada xun samaynaya. waxaa la daba dhigtaa dadka markuu masiixiya ahay dhaho. ma isweydiiseen maxaan uga guban? maxay dadka oo Soomaalida ay uga gubtaan markuu qofka yiraaho masiixiyaan ahay oo ay caadi ula tahay markuu yiraaho atheist ahay ama buddhist noqday? ma isweydiiseen baibalkan saas looga cabsanayo maxaa looga cabsadaa? oo ma loo daayo oo xorriyad la siiyo qofka inuu ku aqriyo baibalka, uu fiiriyo. hadduu qalad yahayna maskaxdiisa iyo caqligiisa inuu kaga soo noqdo oo ilaaha oo runta ah uu ku amino asagoo arkaya waxyaalo options ah. waxa runta waxaa lagu gartaa ama aaminaada runta ay imaataa marka options haysatid. laakiin hal waxaad lagugu qasbo. waxyaalo badan ayaa jira oo qofka fiican inuu isweydiiyo, uu caqligiisa ka fikiro, uu isiraaho maxaan u samaynayaa waxan? maxaan u ordayaa oon qof ugu handadayaa ama u dilayaa ama u sasabayaa ama u soo jiidayaa inuu ilaahan aamino haddaynan ahayn doorasho asaga ka timid? 2 wax bini aadan cabsiiyo iimaan ma noqdo. ilaahay bini aadan cabsiiya oo cabsi lagu aaminana iimaan iyo rumaysad ma noqdo. marka mawduucan inaan ku dheeraado ma rabo, waqtigaan rabaa inaan waqti yar duubo, soo wuu sii socon karaa. laakiin bal isweydiiya su-aashano, iimaanku ama rumaysadka ma ku yimaadaa qasab? qof ma ku rumaysan karaa wax lagu handaday oo lagu canaaday oo lagu qasbay? waxaa fiican qofka
in loo daayo xorriyadiisa gaarka ah iyo rabitaankiisa iyo doorashadiisa waxa uu jecel yahay uu ku qanacsan yahay. taas waayo xorriyadda ilaah lagu caabudi karo. waxa ilaah ka farxin kara in qofka uu u yimaado uu garasho uu asaga leeyahay uu garto ilaahiisa uu ku caabudo. marka intaana kusoo gabagabaynayaa maanta programka. waxaa idin leeyahay isweydiiya inta i dhagaysanaysa, haddaad aaminsan tahay inaad ilaahay dad ku caburisid ama aad ku handadid ama aad ku canaadid, isweydii ilaahay muxuu faa'iido ka helayaa, adna maxaa faa'iido kuugu jira hadduu qofka ogolayn ee cabsi uu ku yimaado. isweydii su-aalahaas. intaas ayaa ugu baxayaa maanta programka. kulligiin rabbiga ha idin barakadeeyo oo waa idin jeclahay. waxaad ra'yi ka qabtana please iisoo gudbi, sidaad u aragtana please ra'yigaaga dhiibo. xor baa u tahay ra'yigaaga, fikirkaaga xor baa u tahay, waana lagugu ixtiraamayaa. waa Hoob Abuukar oo idin leh sidaas iyo ismaqal dambe.